بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalayaal maanta waxaan idin soo hor istaagay inaan idinla wadaago dhibaatada fatahaadaha iyo isbedelka cimilada ee loo yaqaan El Niño ee raadka ay ku reebata dadkeena. walaalayaal dalkeena maanta xaalad gaar ah ayuu ku sugan yahay. dadkeena maanta meel kastoo ay joogaan waxa saameeyay arrintan fatahaadaha ha u kala darnaadeen dhulalka qaar. waxaan rabaa si gaar ah dadka Soomaaliyeed inaan u sheego Soomaaliya dadkeeda xaalad dhab ah ay ku jiraan waxa weeye dadkan 16 sano ayaa argagixiso dul fadhiday inay tacbadaan ay u diiday. dadkii waxay ku qasbeen argagixisada inay dadkeena ku noolaadaan wax gacanta laga siiyo inay ku noolaadaan. dadkii tacba jiray waxay si jiray kuwii xoolaha haystaan xoolaha waa ka qaateen, kuwii beer tacbi jirana beer tacabkii waa u diideen. waxaa intaas dheer inay u diideen in ay haddana hay-adihii samafalka meelihii la rabay ay gaaraan. guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxay og yihiin sanadkii hore 2022 waxaa dadka Soomaaliyeed 7 milyan iyo jarjar dad Soomaaliyeed ayaa waxay halis ugu jireen macaluul. kaalmadii dadka Soomaaliyeed ay geysteen iyo kaalmadii beesha caalamka ay geysatay dadkaasi macaluushi way ka badbaadeen, macaluul ma dhicin. ilaahay mahadiis, ilaahay mahad ka gaarto. abaartii isku xigxigtay ee soo martay ayay ahayd. laakiin waxaa ka dhashay abaarahaas dad badan oo barakacay oo deegaanadoodii ka soo barakacay. abaaruhu ha barakiciyaan, shabaab ha soo barakiciyo oo dhul badan oo muxuu ahay deegaano ah oo magaalooyinka iyo tuulooyinka waaweyn u badan ku soo xerooday oo yimidaa jiro. dadkii oo sidaas u barakacsan ayaa haddana wixii yaraay oo ay haysteen ama cooshadihii yaraa ay ku nooleen qaarkood ayaa haddana biyo ka qaadeen. walaalayaal dadkeennii meeshaas ayay marayaan ayagoo awalba nuglaa oo abaaro ay usoo nuglaadeen oo argagixisada iyo khawaarijta iyo talaxumadeeda ay usoo nuglaadeen ayaa haddana waxaa dhacday inay haddana masiibadan kale ay kusii habsatay. waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ku wajahdaan walaalaha Soomaaliyeed maanta xaaladoodu waa sidaas. waxaan rabaa si gaar ah inaan u xuso dadka ay dhibaatadan fatahaadda ilaa iyo hadda weli way socotaa dhibaatadii, laakiin ilaa iyo hadda waxay saameysay dad lagu qiyaasay 2 milyan iyo bar qofood ayay toos u saameysay. fatahaaduhu ay u saameeyeen ilaa iyo hadda 101 qof ayaa la og yahay inta dhimatay oo lasoo report gareeyay inay ku dhinteen daadadka. ilaa iyo haddana 1 milyan iyo 100,000 dad ku dhow 1 milyan in ka badan oo qof ayaa sidoo kale mar kale barakacay. kuwii hore oo abaarihii la barakacay waa barakacsan yihiin. 1 milyan oo kale oo waxaa ku korortay in ka badan barakacayaashii. waa ilaa iyo hadda xaaladdu meesha ay marayso. berri dambe iyo isbuuca dambe sida ay noqotana waqtigeeda idinla soo wadaagayna. waxaa dadka Soomaaliyeed ay dhaafay oo ka baaba'ay 4,000 oo neef oo xoolo ah oo isugu jira lo iyo ari iyo geel ha u kala badnaadeen. 4,000 oo xoolo ah oo dadkaasi ay lahaayeen miyiga jooga ayaa dhaafay. waxaa baaba'ay dadkaasi ay lahaayeen nooc kastaba ha ahaadeen 140,000 oo guri oo lagu hoyanayay ayaa baaba'ay. guryuhu noocay doodaan ha dhagax ha ahaadaan, jiingad ha ahaadaan, aqal Soomaali ha ahaadaan, bac ha ka samaysanaano. waxaa baaba'ay buundooyinkii ku yiilay webiyada oo dadku iskaga gudbayeen sida buundada buur dhuubo iyo baar dheere oo hadda la xisay. kuwii kalena biyihii dul socdo daqiiqad kasta ayagana inay go'aan ayay u dhaween. kuwana horey u baaba'sanaayeen oo hore ayay u go'sanaayeen sida Jubbada Dhexe, Araare buundadeedii iyo meelo lamid ah hore ayay u baaba'sanaayeen. sidaas daraaddeed dowladda Soomaaliya si ay arrimahaas ay uga howlgasha waxay magacaawday guddigaasoo isku jiro wasiiro, ganacsato, bulshada rayidka, culamaa uddiin oo isugu jira oo si joogtaa u kulma sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadkaasi. waxaan rabaa walaalayaal intii aan kari karno inaan isku tashanno, dadkanaga wixii aan gaarsiin karno inaan gaarsiino. Soomaalidu meel kastoo ay joogaan dal iyo dibad qurba joogta si gaar ah ayaan ugu dardaarmaya. ganacsatada Soomaaliyeed ee Ilaahay wax siiyey ayagana si gaar ah ayaan ugu dardaarmaya. guud ahaan dadka Soomaaliyeedna waa u dardaarmaya waxaad karto. dhibaatadaas maanta jirtahay hanti la bixiya, xoolo la bixiyo, beesa la bixiyo, waxna kuma yara waxna kuma badna.
waxa ugu yar hadaad bixisana kuma yara waa loo baahan yahay waxa ugu badan hadaad bixisana kuma badna marka kumana yara kumana badna waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed in ay maxaan ku raadayay khasnadahooda furaan jeebabkoodana ay furaan oo ay dadka Soomaaliyeed gargaarkaasi ay marna si hagar la'aan u gaarsiiyaan walaalayaal meesha dhibaatooyin ka dhaca cunto yaraana jirto cuntadii male wixii dadku haysteen muxuu dadka ka qaaday wixii kalena xataa wax culays badan ka jira sidii loo gaarsiin lahaa hadii ay yihiin hay'adaha caalamka hadii ay yihiin muxuu dadka Soomaaliyeed gurmanaya laakiin haddana waa la gaarsiin karaa hadii uu la isku dayo qiimo badan qofka bini'aadamka noloshiisa wax ka qiimo badan male wax kasto qofka noloshiisa badbaadinaya qiimo kasta ku kacaan in la gaarsiiyo waay waxa laga yaabaa dadka qaarkiis inay yiraahdeen waxoogaan yarkaan diibina laakiin qarashka lagu geynaya ka badan ha ka badnaado walaalayaal ku bixi ha gaaro qofkii wax gaaro dadkeena biya qaaday haddana maanta haraada ka jiro oona ka jiro biyo nadiif oo la cabo malaha biyo la cabay oo daadka keenay cudurada ka dhashay waterborne diseases ayaa meesha ka dhashay kanaaca ka dhalatay dadkii waa wada jiran yihiin waa gaajaysan yihiin resistant adkaysigooda xataa cudurada iyo waxay u adkaysan kareen ugu yaraaday walaalayaal meeshaas dhibaato xoog leh ka jirta dadka Soomaaliyeed oo hawday mala'aanina walaalkaaga Soomaaliyeed dhibaasan waa adduunyo wanaagsan iyo aakhiro wanaagsan oo isla socdo ilaahay ajri xasanaad ayuu ka siinaya dadka Soomaaliyeed sharaf iyo karaamo iyo cizi ayuu ku helayaan in ay ka badbaadeen dhibaato maxaan ku raadayay aan ka badbaadi karno waxaan leeyahay baaqiga wuxuu ku wajahayaa koow dadka Soomaaliyeed dad biyo sacabadaada looga dharkaa gargaarka sacabadana war waa aakhiro iyo adduunyo isla socda walaalayaalow yaanan wax la reebanin wixii aan kari karno dawlad iyo shacbigeedaba iyo meel kasto aan joogno dal iyo dibadba aan u midowno inaan badbaadino naf Soomaali ah walaalayaal aan ku celiyo mar dambe waxaan ku soo gunaanadayaa dhibaatada taagan dadka Soomaaliyeed ee la gargaarayo waxna kuma yara waxna kuma badna ha isdeen waxaan waa yar yihiin ha isdeen waxaan ma awood waa badan yihiin war waxaad haysato wax ka bixi ilaahay ku soo